Today is a day of joy. maanta waa maalin farxadeed sidoo kale waa maalin kala guur waxaa lagu qiimeynayaa guulo la gaadhay sidaa awgeed waxaad arkaysaa wajiyo badan oo faraxsan oo fadhiya qolkan assalaamu calaykum waxaad ogaataa jaamacadda aad geli doonto iyo kulliyadda aad qaadanayso inay saameyn weyn ku yeelan doonaan inta noloshaada ka hadhay amaba hayaankaaga nololeed haddaad rabto inaad ku guulaysato hayaankaa dheer fadlan raac 4 tilmaamood ku soo dhowaada meecaad podcast fadlan subscribe garee oo taabo jalaska si aan mawduucna kuu dhaafin ha ilaawin share iyo like لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر nolosheennu waa go'aamo yaryaroo laysu geeyey waxaana ka dhasha inaad nolosha ifka iyo ta'aakhiraba ku guulaysato go'aamadaa yaryarna waxaa ka mid ah waxbarashada xidhiidhka shaqada guurka iyo dabeecadda qodobada aan soo sheegnay adiga ayaa go'aan ka gaadhi kara balse waxa jira kuwo aanad go'aan ka gaadhi karin oo ku xidhan waxa ilaahay inaga qariyey ee qaybka ah maanta waxaynu ka hadlaynaa kuwa ku xidhan go'aankaaga adiga waxbarashada dugsigii hoose dhexe iyo sare saameyn weyn kumaad lahayn shakhsiyan sida dugsiga aad tegi doonto maadooyinka aad qaadanayso iyo wixii la mid ah jaamacadda waxaa la yidhaahdaa waa albaabka laga galo mustaqbalkaaga ee ugu horreeya waayo go'aankeeda iyo ka talinteeda labadaba adiga ayaa leh hadhowna adiga ayay si gaara kuu saameynayaan haddaba maxay yihiin tallaabooyinka iyo tabaha la gudboon ardayga ku cusub waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan ee uu bilaabayo 1 samee baadhitaan amba waxa loo yaqaano research waxaan xasuustaa waqtigii aan bilaabayay jaamacadda in arday fara badan oo aan mar wada bilownay geediga waxbarashada isla markaana qof kasta qaatay kulliyadu u arkay inuu ku fiican yahay haddaba arday badan ayaa waxay ku jahwareereen kulliyadihii faraha badnaa iyo weliba aqoontii ay kulliyadahaasi bixinayeen taasina waxay keentay in muddo sannad iyo badha ay kaga lunto kulliyad ka tag oo kulliyad kale u bedelo aakhirkii waxay go'aan ku qaateen in kulliyaddii ugu dambaysay ay markaa joogeen ay ka bilaabaan geedigoodii waxbarasho inta badan taa waxaa keena wacyigelinta jaamacadaha ee dhinaca ku saabsan oo yar ama aan jirinba wacyigelinta waalidka iyo ilmaha oo aan la soo tijaabin ama aan ogeynba waxa uu ku fiican yahay magaalada aad degan tahay waxa ku yaala jaamacado fara badan oo bixiya aqoon kala duwan iyo heerar kala duwan oo aqooneed waxaad kala soo baxdaa labada jaamacadood ee ugu wanaagsan xagga sumcadda iyo tayada sidoo kale waxaa muhiima inaad ogaato qiimayaasha waxbarashada meesha ay ku taallo maktabadaha jaamacadda gaadiidka jaamacadda nooca ardayda ay dhigata iyo wixii la mid ah 2 maxaad ku fiican tahay qof kasta oo inaga mid ah wuxuu leeyahay hibo ilaahay ku abuuray oo aad ugu fiican yahay mid baa ku wanaagsan dhismaha mid baa ku wanaagsan maamulka mid kale ku wanaagsan caafimaadka sidaa awgeed qof kasta wuu garanayaa waxa uu jecel yahay haddaad xisaabta ku wanaagsan tahay isla markaana jeceshahay in dalku dhismayaal qurux badan yeesho waxaa tahay qof baran kara aqoonta civil engineering haddaba naftaada la fadhiiso oo soo qaado qalin iyo waraaq isla markaana ku qor wax kasta oo aad ku wanaagsanayd maanta ilaa yaraantaadii sidoo kale waxaad ku qortaa waxyaalaha aad jeclayd inaad qabato laakiin aanay kuu suuragelin inaad samayso intaa kadib ka soo dhex saar halka shay ee keliya aad u aragtay inaad ku wanaagsanayd weliga 3 hubi suuqa kulliyadaada haddaba markaad hesho kulliyaddii iyo aqoontii aad baran lahayd waxaad hubisaa oo baadhitaan ku samaysaa aqoontani ma tahay mid berri loo baahan doono suuqa iyo nolosha bulshada wax ma ka beddelaysaa waa su'aalaha la rabo inaad isweydiiso suuqa iyo qiimaha ay kulliyaddu leedahay waa qayb ka mid ah inaad xiise gaara u yeelato inta aad waddo waxbarashada marka aan leenahay suuqa kulliyadda waxaan uga jeednaa cilmigani hadda ma yahay mid lagu shaqeeyo oo loo baahan yahay tusaale haddaad samayso shirkad soo saarta idaacadaha warbaahinta laga dhagaysto iyo haddii aad samayso mid soo saarta moobilada casriga ah ee hadda suuqa looga baahan yahay labada shirkadood keebaa suuqa haysta ama dhankiisa loo sii socda la xidhiidh xafiiska la talinta ee jaamacadda haddii uu jiro xafiis ka shaqeeya arrimahan ku saabsan doorashada takhasuska jaamacadda wuxuu ku siinayaa kulliyad kasta iyo waxay ku fiican tahay
inta suuqeedu leegyahay, sannadaha la dhiganayo iyo wixii la mid ah. Warbixintaas markaad hesho waxaad barbar dhigaysaa warbixinihii hore aad ka haysay kulliyadda ama jaamacadda ee aad dibadda ka soo heshay, isla markaana aad soo baadhay. Marka waxaa kuu fudud inaad ka qaadato go'aan ku dhisan cilmi baadhis iyo aqoon aad soo samaysay. Idanka allena kama warwari doontid go'aankaaga. Qodobka ugu dambeeya, dhammaan ardayda bilaabaysa jaamacadaha ama bilaabayba ee dalka ku sugan ama dibadda ku maqan, waxaan u soo jeedinayaa in wax kasta ay yihiin go'aan aad qaadatay iyo niyad. Haddii go'aanku jilicsan yahay isla markaana niyaddaadu maqan tahay oo aad tahay maqane jooga, ma suuro gelayso inaad ka midho-dhaliso waxbarashada iyo mustaqbalka aad leedahay. La arkee dad badan oo dhammeeyey jaamacadaha balse haddana aan wax natiijaha ka gaadhin yoolkoodii iyagoo ku nool nolol aad u dhib badan oo ku dhisan warwar iyo walaac iyo sidoo kale rajo la'aan. Balse adigu maadaama aad dhegaysatay warbixintan aan kuu soo gudbiyey, waxaan hubaa inaad guul ka gaadhayso geeddiga waxbarashada iyo yoolka aad leedahay oo aad u aayi doonto taladan aad maanta qaadatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.